بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقالة مقدشو سنة الرضا عوال كان نقول السوغان قدوميها كوحيجين كأرماء برشادة قبل كا أقاسمها قودة وزارة دا أقاسمها ياشا قبل كا أقاسمها واحد يد وزارة دا قدوميها حرير كسبورتي قبل كا قدوميها هوين كا قبل كا دمان مدحدا دغموين كا قبل كا بنادر iyo kan magaalada Muqdisho dhamaan la taliyaasha iyo shaqaalaha wasaaradda dhamaan saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee halka ku sugan marti sharafta kale guud ahaan maamulka Banaadir iyo kan magaalada Muqdisho assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh habeen wanaagsan casho wanaagsan xaflad wanaagsan insha Allah سنين إن شاء الله سنين ما شاء الله xiisada iyo xamaasadina waa ku mahadsantihiin waxaan si gaara rabaa inaan halkaan ugu xuso munaasabada caawa aan wada jeedno sida boorka ku qoran 6 Abriil waxay ku astaysan tahay maalinta horumarka isboortiga iyo nabadda adduunka oo ah maalin caalami ah iyo maalin kale oo isla munaasabadaas ku astaysan tahay oo ah maalin qaran maalinta ciyaartooyga Soomaaliyeed haddaan dib u noqdo waxaan rabaa inaan horta marka hore sheego aniga wasaaraddan xilkeeda marka aan qabanayo waa markii labaad sidaas ayaan u xusuusnahay una ogahay munaasabadaha ay sida gaarka ah loogu xuso hadday tahay munaasabada maanta hadday tahay maalinta dhalinyarada 15 May dhalinyarada Soomaaliyeed iyo hadday tahay 12 August maalinta dhalinyarada adduunka marka maalmo munaasabado ay gaar ah u leedahay ayay ka mid ahayd runtii waxaan xilka wasaaradda waqtigan xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dawladda guud ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan la wareegay 4 bishii Abriil 2017 waad garan kartaan maalinta aan xilka la wareegay maalintii ku xigtayna waxay ahayd 5tii si aan u hubiyo wixii xilwareejinta ay ahayd oo ah shaqaalihii dokumentigii qalabkii wasaaraddu lahayd waxaanan isha ku sii hayay maalkana iiga jirtay 6 Abriilna inay maalintu ka xigta tahay sidaasi lamida ayaan guddiga olombikada iyo xiriirada hoos yimaada aan ula xiriiray si aan kulan u yeelano caawa dadkii meeshaan ay fadhiyaan madaxdii olombikada iyo la taliyaasha wasaaradda markaan kulanka iskugu nimid biqudrati jabbaar wasaaradda albaabkeeda ayaa qarax ka dhacay nama hanjibinin nagamana hor istaagin wixii aan u soconnay annagoo duruuftaas qabna ayaan 6 Abriil 2017 haddana ku xusnay gobolka Banaadir iyo wasaaradda iyo xiriirkii olombikada isku duuban inaan marathon ama waxaan ku samaynay experimento aan maalinta munaasabada ku xuseen 2018 markii munaasabada 6 Abriil aan ka fakaraynay hadda ka horna waan sheegay qofkii libinta caasidana xaasha ma fiicna
aragti kasta oo habboon waan soo dhaweynayaa waanan ka qaadanaynaa maadaama aan gobolka banaadir iyo wada shaqayn fiican naga dhexaysa degmooyinka dhinaca isboortiga iyo dhalinyaradaba gudoomiyaha degmada howlwadaag cabdikariin cali kaar iyo gudoomiyihii hore haddana agaasimaha guud ee gobolka ah mudane maxamed axmed cantoobo ayaa aragtida muqdisho mini marathon isku keenay sidaasi lamida gudoomiye yariisowna aan ula nimid annaga oo wada jirana ra-iisul wasaare xasan cali khayre aan u qaadanay waxaana uga mahad celinayaa gudoomiyaha inuu lahaa aragtidii soo jeedinta in sanad kasta mini marathon lagu xuso marka mahadsanidin waxaa noo suurta gashay wax ilaahay loogu mahadiyo oo marka aan ku sameynay hore markii aan guddi u saarnay aniga gudoomiyaha waxaa la isla go'aansaday in 1,000 ciyaartooy ay samayso wiilalna ay ahaadaan marka intaas laga soo tago sanadkan wax ka beddelkii aan ku sameynay in tiradii la kordhiyey lagana dhigay 1,500 dadkiina laga dhigay wiilal iyo gabdho waxaana sii weheliyey dadka baahiyaha gaarka qaba oo ka mid ahaa tartanka orodkaas laakiin wuxuu noqday waa la wada ogsoon yahay oo cid walba waa ka dharagsan tahay tartankii iyo xuskii 2 sano sidii ay ahayd marka sidaasaan annaga ay suurtagal noogu noqotay ilaahayna aan ugu mahadinaynaa waxaa intaas dheer marka maalinta 6 abriil aan ku xusnay waxaa lagu aadiyey maalinta jimcaha oo ah maalintii nasashada dadka dayarta ah iskuulaadkii jaamacadihii ay dhiganayeen laakiin maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa kusoo kordhaya waxay ka kala yimaadeen marka 1,500 17 degmo ee gobolka banaadir oo min 40 wiil iyo 20 gabdhood ah 1,020 degmay kaga yimaadeen 500 inta ka sarreysa 480 kalena waxay ka yimaadeen olombikada xiriirada hoos tago gaar ahaan xiriirka ciyaaraha fudud sidaasaa marka si wada jira looga wada qayb qaatay waxaana ku faraxsanahay inaan caruur iyo ciroole tartankan wax u kala harayba ay lahaynoo jidka laga wada raacay quruxdii iyo wanaaggii iyo sharaftii iyo haybadii uu lahaa oo aan ku wada faraxsanayn xuskaas loo wada dhan yahay ayaa ka dhacay tartanka marka bilowgiisii sanadkii hore iyo sanadka taasaa keentay in aan haddaan nahay wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo olombikada ee xiriirka ciyaaraha fudud 32 sano kadib Soomaaliya inay heer qaaradeed bilad dahaba soo hoyso waxaana la wada ogsoon yahay tartankii Jabuuti ka dhacay in 1,500 iyo 1,800 mitir aan taariikh 32 sano ku dhawaad 32 sannadood Soomaaliya ay kaalimay biladaha dahabka ahaa soo hoyso waxaa noo xigay oo daraad soo gabagaboobay isagana tartankii ciyaaraha ka dhacay Rwanda oo aan kaalinta 3aad ee bilada Maarta aan soo hoynay waxaana go'aansanay olombikada iyo wasaaradda inaan horumarino ciyaaraha fudud waxaana ku faraxsanahay gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud Marwa Khadiija aadan daayir way sheegtay idaacadaana waa ka wada maqasheen
tartankaas ciddii awoodda oo ciyaaraheena hadday joogaan gobolka banaadir iyo hadday ku nool yihiin dowlad goboleedyada kale waa tartan u furan da'yarta dhalinteenna inay ka qayb qaataan kaasaa laga xulayaa xulka qaranka Soomaaliyeed ciyaartooyga u safan doona haddii Allah awoodda loo ogolaado. waxaan siinay nambaro si loo kala ogaado abaalmarinta iyo dhiirigelinta iyo sidii qof la arko u gaari lahaa natiijadaas. wasaaraddu waxay diyaarisay funaanadaha ciyaartooyda inta kale gobolka banaadir. waxaan leeyahay gudoomiyaha duqa magaalada gacantii uu naga siiyey suurtagal uma noqoteen wasaaradda haddii ay xiriir iyo guddi olambika shata xitaa inay noo qabsoomaan haddaanan gudoomiye Yariisow iyo gobolka banaadir aysan ahayn. annaga marka waxaan xaqiijinaynay iyadoo sidaas ay tahay in xul qaran la helo taasaa keentay funaanadaha marka inay garabka kaga qornayd nambarka 1 ilaa nambarka 1500. waa la ogyahay marka degmo kasta qofkii ka soo baxay. waxaan wada ognahay oo aan fagaaro ku qaybsanay kulamo isdaba joogayaan xaruntan gobolka ku lahayn iyo kii xiriirka ciyaaraha fudud ka yimid iyo kii ciyaaraha tenniska dheer ka yimid waa la wada ogsoon yahay. laakiin aniga iyo gudoomiye Yariisow waxaan go'aaminay inaan wada guulaysanay intii tartanka ka qayb gashay. taasaa marka aan ku wada faraxsannahay qof la arkana la rabaa inay qofka kale soo gaarto. waxaan jimcihii marka ay noo ahayd inaan dadkeenna tusno muuqaal iyo bilic qurxoon iyo rajo iyo yididiilo ay dalkooda ku qabaan caasimadda qarankoodana ay ku qabaan. markaa inaan dhahno ma ogtihiin magaalada Muqdisho aynu joognaa sida maanta ay tahay marka aan miliilico muruga ay qabato muusooday. marka saasaa keentay in todobadii jimcihii munaasabadda orodka gaaban in gudo iyo daba dadkeennu ka dareemaan. laakiin maangaabka uusan garan karin quruxdaas waxaan leenahay habeenii maalin ishii bugta ay ku bikacsi. kii quruxdaas arki waaye oo waa la musuqmaasuqay isboortigii waa la yeelay isboortigii haddana mas-uuliyiin iyo odayaal kollay gabdhuhu kama suurtoobaan waxaase laakiin ragga ha yaraada ha weynaadee far baa ku wada godan. waxaan leenahay iska hadlow inay garay. alxamdulilah waxaan markaa soo gaarnay inaan tartamadaas qaabkaas u fulino. waxaan rabaa biladaa la soo hooyey heer qaaradeeda laga soo hooyey bariga bartamaha laga soo hooyey geeska Afrika laga soo hooyey. waxaan u soconnaa ciyaarihii adduunka Tokyo 2020 inaan isu diyaarino. miyayna hanjabin karaan indha ku garaadlahaas aan quruxii wanaagga u muuqan. waxaan rabaa waa mahadsantiin in marka dhammaan ay naga wada go'an tahay inaan la sameeyo. waxaana rabaa inaan si gaara halkaan ugu xuso dowlad goboleedyadii laga xusay munaasabadda maalinta isboortiga horumarinta isboortiga nabadda adduunka ee maalinta ciyaartooyga Soomaaliyeed sida dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Galmudug. qabanqaabadii xoogga lahayd ee ay ka galeen wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed mudane Ali Dooh iyo qabanqaabadii ay Galmudug ka samaysay gudoomiye ku-xigeenka Olombikada walaashay Faadimo Cali Nuur iyadoo uu hor ordaayo madaxweynihii Koonfur Galmudug
حاج أحمد عليه قال لي عاف وما تسيني تاسع ما تسندي هذا وما تسنتين تاسع مركا أنكر رجينينا إن نبض يهرم مركا وقوض الشقينينا هذا عيارتو إذا الناس قولا سوهي بلدها كيني قرنكود سوهي وحي تببركو قاتان دل كله وحنكون دلنا إن المعلمين تأجانب كسوع علينا وحنكون دلنا إن جورجين يسوع عشانه دل ديران وجرنا هذا مركان نبات هلنا الحمد لله بوري سنة بأورس كوكو قادم دونا لكن هذا دل في توبيا قاتان تببرداس أيضا مال وصل تببرين iyo meelay waxay soo mareen iyo hawsh ka soo gashay Olombikada iyo xiriirada wasaaradda iyo madaxda qaranka laftirkeeda oo kaalin ka qaadatay waayo aragtida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah horumarinta isboortiga iyo horumarinta dhalinyarada sidaas lamidana ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre ayaa barnaamijka xukuumaddiisa uu salka ku hayaa horumarinta isboortiga iyo dhalinyarada marka falillahi alhamd waxa ay ka soo kala jeedaan marka meelahaas waxaan uga socdaa numberka koowaad ama orodyahankii ugu horeeyay inaan dadku wali wax ogeyn aan u sheega anagoo wada guuleysan funaanada uu wato number baa ku qoran degmo kasta iyo xiriir kasta iyo qof kasta way ogtaa wixii ay qaadatay guddi baana ka wada ahayn oo gudoomiye yariso gobolka banaadir gaar ahaan ugu xil saaray gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo tiimkeedii la shaqeynayay iyo ka wasaaradda iyo kan Olombikada kullina waan wada dhex fadhiyay gudoomiyaha wana nala joogay haddana si wax qurux badan oo lagu kalsoon yahay rajo gelin karana dhalinteenu aan uga helno wuxuu ka soo jeedaa xiriirka ciyaaraha fudud wiilkii galay numberka koowaad laakiin degmo xamar kaga noolaan lahaay nasiibkiisa degmada Kaaraan gurigiisa ka dhigtay iyadana waa wada leenahay marka xiriirkii ciyaaraha fudud iyo degmada Kaaraan ba wiilka waa ku guuleysteen gobolka banaadir ku guuleystay wasaaraduna way ku guuleysatay Soomaaliya wada guuleysan marka sidaa lamid ah dhalinyaradaas geyga Soomaaliyeed marka ka soo kala jeeda ee tababarada dalka Kenya iyo Ethiopia lagu siiyo oo ah qaabkii loo horumarin lahaa ciyaaraha fudud ay horseed u tahay guddiga Olombikada qaranka iyo xiriirka ciyaaraha fudud waxaa ku jira wiil ka tirsan naadiyada ciyaaraha fudud kooxda Hegan musuqmaasuq dawladani inuu ka dheer yahay ku sheegayay kani maqlaayo ka wasaaradda ahaan wayna saameysay tartanka wiilkii noogu maqnaa wuxuu galay ardaydii ciidankii tirakoobkii ciidanka laga saaray waayo waa la waayay qofka la yiraahdo mishaarkiina waa laga gooyay shaqada ciidankii uu ku niyad fiicnaan waa laga saaray miyuu marka ka keenayaa Tokyo horumar sport waa uu gudoomiye yariso shirka taliya ciidanka booliiska waa uu yahay iyo wasaaradda amniga waa u tagnay xiriirkana arintaas way og yihiin diiwaangelintiisii fi duruuf qarankiisa mid u safan kan uu Facebook ku jiro la mid yahay saas daraadeed ha ku calool fiyoobaadeen daayarteena sida gudoomiye Khadiijo ugu dhawaaqday waa furan yihiin qofkii ka soo qayb galaya hadduu gobolka banaadir ka soo baxayo iyo hadduu dawlad goboleed ka yimaado lugtiisa iyo gacantiisa ayaa ciyaaraha noocyadooda kala duwan qarankaagu kaaga rabaa inaad guul ugu keento diyaarna waxaa lagu leeyahay qaabkii lagu horumarin lahaa haddii allaha
waa naga go'an tahay marka taasaa sal u ah waxyaabaha aan ka shaqaynayno haddii allah awoodda leh ogolaado inaan kaalimahaas ka soo hoyno tartankii sida fiican noogu dhalay marka degmooyinka gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintooda dhammaan waa wada mahadsantihiin waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir oo suurtageliyey in amnigaas lagu naaloodo ay ku soo dabaalaan caasimadda magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir guud ahaantiis taas ayaana diyaar ula nahay inaan guusha aan haysano sii adkaysano inta naga dhimanna aan annagoo wada jira aan u wada istaagno haddii allah idmo waxaan ka codsaday muslimo qaasin hilowle fanaanada muusiqa inaan hees ku soo gabagabeeyo caawa haddii la guulaysto waa lagu digtaa ruux hadduu kuu daraa jiray dowlad iyo shicib dumari orag dowlad iyo shicib dumari orag Somali way isku duubanto tan loo dagaalayaa diidayo shaqaada loo dareeray daawanayo wadalkaagii doqoyohow wadalkaagii dabalyohow wadalkaagii doqoyohow wadalkaagii dabalyohow waa digniine waa digniine isdaryeelo dadka soo raac waa digniine waa digniine waa digniine isdaryeelo dadka soo raac way dul walaaloo runa dabci odin dul walaaloo runa degmi oreer dabciyadii wadaaga diraadiraha tuuge kala dilaayo doonayo inuu kala dilaalo duuqato derejo doonayo inuu kala dilaalo duuqato wadalkaagii dabalyohow wadalkaagii doqonyohow wadalkaagii dabalyohow waa digni dabalyohow waa digniine waa digniine isdaryeelo dadka soo raac waa digniine isdaryeelo dadka soo raac maantane muslimo qaasim hilowle marka waa mahadsantihiin deeqa waxaan rabaa agaasimaha guud ee wasaaradda inaan noogu yeerto gabagabadii aan joognaa gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho mudane yariiso waxaan kaa codsanaynaa inaan abaalmarinadan ugu maamuusno wasaaradda inaad noo bixiso adiga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada senator naciima senator samsam na ay qayb ka noqdaan dadkaan ku maamuusayna inay bixiyaan agaasimaha guud